xaflad lagu daahfurayay xisbiga wadajir xafiis uu ku yeesho wadanka Koonfur Afrika ayaa lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. xafladda oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaariyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg ayaa lagu soo bandhigay higsiga xisbiga wadajir, dastuurka iyo waxqabadka xisbiga. xubnihii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa si weyn u bogaadiyay xisbiga wadajir, waxaana isdiiwaan geliyay xubno fara badan oo ka mid noqon doona xisbiga wadajir ee ku nool dalkan Koonfur Afrika. inta ay socotay xalfadan lagu daahfurayay xisbiga wadajir ee lagu qabtay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa qadka telefoonka waxa uga qayb qaatay hogaamiyaha xisbiga wadajir oo su'aalo ay weydiiyeen qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay, isagoona ka jawaabay wax badan oo u sharaxay waxyaabaha ay tiigsanayaan xisbiga wadajir haddii ay hoggaanka wadanka qabtaan. sida magaca ka dareemi kartaan wadajir South Africa ama wadajir Koonfur Afrika ay tahay xisbigii wadajir qaybtiisii Koonfur Afrika, maadaama wadankii asxaab loo bedelay. waxaan la kumanaatay in dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Koonfur Afrika ay chance u helaan ay kaga qayb galaan in ay iska diiwaan geliyaan ama member ka noqdaan asxaabta. sidaa darteedna aan xafiis idinkaga furnay magaalada Johannesburg. waxaan u malaynayaa warqadaha ay ku qoran yihiin boorka ka dambeeyana ku qoran xisbiga wadajir waan u mahadcelinaynaa maadaama uu noqday xisbigii ugu horreeyey oo jaaliyadda xusa. xisbiga wadajir waa xisbi ka tirsan xisbiyada Soomaaliya, laakiin rajo weyn leh maadaama uu sida uu gudoomiyuhu sheegay ilaa iyo 9 gobol iyo wax ka badan ay xubno ku leeyihiin. waxaan rajaynaynaa inuu noqdo xisbi ummadda Soomaaliyeed gaarsiiya meeshay u socdaan haddii Ilaahay yiraahdo. annagoo tan soo afrikanahay Soomaalidu waxay tidhaahaa walaalku kala horreyn mahayna kala macaan maaha. maadaama aan ugu soo horreyseen waa idin soo dhaweynaynaa, waana idin aqbalaynaa, waxaan idinla shaqaynaynaa inta ummadda Soomaaliyeed daraheeda wadaan. maalinta ummadda Soomaaliyeed daraheeda ka leexataan isma naqaan. bacda salaam waxaan halkan rabaa anigoo Maxamed Ibraahim Cafaar ka caddeeyo inaan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aan soo dhaweynayo taanka xisbiga iyo inuu ka mid noqday asxaabta ee Soomaaliya la rajeynaya inay wax ku soo kordhin doonto. shakhsiyan waa taageeraya Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo shacabweynaha Soomaalida waxay xaq u leeyihiin in codkooda si dimuqraadiyada wax u sheegi karaan, waxna ku diidi karaan. waan taageeraya magacan wadajir magac dhow ma aha, magac fududna ma aha, magac la dhayalsan karana ma aha. waxaan salaamayaa qabanqaabiyaasha daahfurka xisbiga wadajir ee maantay lagu daahfuray xaruntan quruxda badan ee joogno. aniga hadda maanta halkaan la joogo waxaan buuxiyey waraaqaha wadajir, foomkii baan buuxiyey inaan xubin ka ahay. taa macnaheedu ma aha inaan ku gowracanahay inaan wadajir ahaado, laakiin waxaan eegayaa wadajir qaabkay wax u wado iyo nidaamkeeda. haddaan ku qanco waan kasii mid ahaanaya, haddaan ku qanci waayana meesha aan ku qancaan aadayaa. taasina waa xorriyadda iyo dimuqraadiyadda shaksiga. iyo xubnaha cusub ee baranjiga wadajir ee South Africa maanta meeshaan nala ku baray intaba waan u hambalyeynayna. si gooniya hogaamiyaha xisbiga luuqadka ku jiray hadduu ka baxay intaba waan maaragtay salaamayaa, waana u hambalyeynayaa. si usuuna haddii ilaahay ku guulayso wadanka Soomaaliha wadajir wadanka guulaysada si maanaha dhowtii usuuna la shaqeey way ku saareen tanaasul suubi oo dawladda hadda oo tanaasul suubi risaala la fadhiya oo la hadal oo dana wadanka ku waaqanaya ka wasaan. Aydros Abdi Hassan, TV caalamiga Universal, Johannesburg, Koonfur Afrika.